that's it waan quraacanayaa kadibna isla hadlaynaa dabcan waxaan dareemayaa inay jiraan dad fara badan oo ay dhibayso waa mahadsan tahay maya sababtuna maxay tahay waxay ka xishoonayaan ama ay dhibsanayaan inay dembi galeen haddii ay yiraahdaan maya laakiin waa laga yaabaa inaysan rabin waxaan loogu yeerayo inaysan raalli ka ahayn marka maadaama aan hadda soo kacay waxaan dareemayaa inaan hawo u baahanahay banaankan tegayna banaankan kusoo duubanayna videogan ee coming up isoo raaca abaay qabow waa jiraa laakiin qabow waxba nagama gelin inaan soconno oo ku qasbannahay ma fahamteen marka gurigayga hadda ka soo baxay meeshan waxaa ka jira dabcan qabow aad u daran which I believe nastan inuu yahay ugu yaraan adiga 15 16 meelahaas uu gaaraan u malaynaa halo halo qalbi aan kugu soo celiyo waan fiicanahay ma fiicantiin haya qalbi aan kugu soo celiyo insha Allah haya xilli aad u qabow baa lagu jiraa -16 waaye maanta qabow zaid ah jiro hase ahaatee yeelkadiisa dabcan waxaa jiro dad fara badan oo dee Soomaalidu ahaba u badnaato oo waxaa jiro inay dareemayaan dembi inay galeen haddii ay tusaale ahaan ay yiraahdaan oo kale maya ama mayadaba ay dhibaysaba runtii mayadaada iyo haadaada waa inay mar waliba isla sinaadaan sababta waxa weeye haddii aadan maya dhehaynin waxay noqonaysaa inaad mar waliba aad yes dhehaysid waxaadan adiga raalli ka ahayn marka bini aadankana dee dabcan kuma qurxoono inuu wax waliba uu haa yiraahdo okay walow ay jecel yihiin dadka iyagoo xitaa waqtigaaga ku ciyaarayo inaad haa tirahdid marka ha samaynin haadaada iyo ha isla ekaadaano mayadaada sababta waxa weeye ma u baahnid inaad noqotid mataqaanaa ari udxiyo loo wado kale oo meesha la rabo la iskaga kaa wadanayo marka ujeedadeedu waxay tahay haddii aad rabtid qof waqtigiisa iyo noloshiisa mataqaanaa maareeya waxaad u baahan tahay inaad tiraahdid maya waa ku qasban tahay ma fahamtid baawarna iyo idilin mayadaada ha lahaato ha caddaato qofku u sheeg inaad dan leedahay ama hawl kaa dhacdo dabcan ka waran haddii intuu saaxiibka ku yiraahdo nikaaniyo meel ii raac oo aad iska raacdid oo waqtigaaga aad soo beertaraysid oo aad soo noqotid oo kale adigoonan mataqaanaa hadafkaagii aadan gaarin dadku mataqaanaa maasha Allah vlogga dad badan baa sameeya laakiin inta badan dadka way kula yaabayaan way ku fiirinayaan maanta dhan waa lagu fiirinaya ma faham kii saas ku agmaraayo wuu ku fiirinaya laakiin way fahmayaan dadka intooda badan in oo aad vlog sameynaysid waa wax international iska bariyahan maya haddaad tiraahdid macnaheedu ma aha inaad qof oo selfish aad tahay ama qof aan dadka keergareynaynin inaad tahay dabcan waxaa laga yaabaa inaad respectful tahay qof xushmad leh inaad tahay laakiin dadku inay ku arkaan inaadan qof xushmad leh aadan ahayn laakiin naftiisa keliya un 24 saac ka fikirayo laakiin saas ma aha haddaa waqtigaaga lumisid waxaad waqtigaaga u luminaysaa qof kale waqtigiisa 24 saacaad haystaa qofka kale 24 saac haystaa dabcan marka haddii 24 saacadood 4 saac ka mid ah aad qof kale ku berberaysid ama asxaab aad ku bixisid runtii guuldaraad ku jirtaa waad guuldaraysanaysaa wax wanaagsanna ma aha waxaase kaloo la yiraahdaa generosity-ga haddii uusan mataqaan real generosity ma noqonayo haddii uusan xuduud lahayn macnaheedu maxay tahay macnaha deeqsinimada waqtigaaga aad dadka ugu deeqaysid qof walba ku yiraahdo asad waxaan ii samay aad iska raacaysid oo kale taas deeqsinimo ma aha waa doqonnimo okay xuduud inay lahaataa fiican gaar ahaan markii ay waqtiga tagto baro maya okay maya haddaa baratid waxaan kuu ballan qaaday inaad noqon doontid qof wax badan ku soo zaa'idiya waqtigiisa waayo waqtiga waad ka faa'iidaysanaysaa adaa ka faa'iidaysanayo okay laakiin haddii qof waliba iska kaa wato waxaad arkaysaa 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano oo ku dhaaftay adig iyo meeshaada taagan qodobka kale aan rabo inaan ku daro waxa weeyaan weliga yaan lagu wadin meel aan siyuut adiga kugu ahayn oo adiga aanan kugu soo bixin
ma dhacdaa inaad asxaabtaada raacdid saaxiibadaada meel lagu wado oo aad meel tagtid kadibna lagu yidhaahdo maxay ahayto meel inta lagu fariisiyo dad aadan garanaynin lagu dhex geeyoo kale oo aad maanta oo dhan dadka aad dhex fadhisid oo haddana meeshana meel adiga kugu soo baxaysayn asxaabtaadii ahayn amba mararka qaarkood hadda sanadadan dambe waxaaba dhacdaba dhallinyarta in loo wado meel shiishad lagu cabaayo qof baa meel shiishad lagu wadaayo ku wadaya meeshaasaad maanta oo dhan fadhinaysaa okay marka qofkii shiishad buu cabayaa wuxuu ku leeyahay waan baxayna meel hiblaayaan aadaynay isug waqtigaaga oo dhan meeshuu ku lumayaa meeshaas meel adiga kugu habboon ma aha okay marka yaanan lagu ciyaarin qiimahaaga iyo hadafkaaga iyo goolkaaga iyo noloshaada iyo mataqaanaa mindsetkaaga yaan lagu ciyaarin qof aadan isku leebel ahayn ama isku darajo ahayn ama aadan isfahmaynin weligaa yuusan ku hagin yuuna waqtiga kaa qaadin idin lihi dabcan qofaan respecti lahayn noqo oo wax walbo lagu yidhaahdo maya dheh maya saas kuma lihi laakiin waxaan ku leeyahay waxaad dadka ka tidhaahdaa maya walaalow waxaan ma awoodo dantaasaan leeyahay ama ujeeddadaasaan mataqaana iga dhacdo dabcan okyaalihii ugu madoobaadaan u malayna baraanka haddana soo bax saas waaye photogrammatic waxa lahayo ku jiro walow aan jeclahay dadka inaan arko inta badan marka qabow zaa'id muu jiraa -16 waaye marka gurigayga inaan u noqdaabay haysan waan daali soo marka noqo qof naxariis leh noqo qof oo mataqaanaa in dadka kala keergareeya noqo qof respectful oo xushmad oo xaddi leh xushmadaada inay xaddi lahaato oo xushmad aan xaddi lahayn qofna ma jecla ma fahamtay marka xushmadaada ha lahaato xaddi waqtigaaga qofka aad siinaysid oo kale saacad 2 saacadood ka badan noloshaada qof ha siinin isbuuci hadday ugu badan tahay dadka qaar iyagoo waxaad arkaysaa cashar u yaalo ama carruurtooda iskuul geysan lahaa ama carruurtooda dabaal geysan lahaa ayaa qof baa soo wacay waxaa laleeyahay makeenya waxaan aadaynaa magaaladan tegaynaa wats magaalo maxay magaalo kuu sheegaysaa danahaaga qabso howlahaaga qabso carruurtaada mataqaanaa iyo xaaskaaga hoosta ka gal gurigaaga xanaanayso laakiin mararka qaarkood aad u baahan tahay oo kale ballan la samayso asxaabtaada la soo sheekayso magaalada aad waa wax fiican laakiin wakhtiga waa qaali mayaduna waa qaali maanta oo dhan waxaan ku celcelinaya waxaa weeyaan maya haddaad tidhaahdid dembi maadan gelin okay maya dembi maadan gelin haye fara badan oo aadan raalli ka ahayn waxaa ka fiican maya aad raalli ka tahay dabcan maya markaad tidhaahdid raalli baad ka tahay already mataqaanaa in mayadaasa adiga dan kugu jirto laakiin haa oo aadan raalli ka ahayn ka warran maanta oo dhan haddaa ku jirtid yaanan hadalkaydun ku badinin yaanan lagu ciyaarin dareenkaaga yaanan lagu ciyaarin aragtiyahaaga yaanan lagu ciyaarin hadfikirkaaga yaanan lagu ciyaarin waqtigaaga adaa iska leh waana wax ugu horeeyo oo maalinta qiyaama la iskula xisaabtamaya waay marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaanaan jeclaysta inaan kusoo koobo dabcan gurigaan tegaya soo markaa waan soo noqonay gurigaan gelaynaa saacad baan edit garaynaynaa 2 saacadood kadibna waxaad ka fiirsan doontaan facebooka ama youtube-ka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dabcan haddii aadan channelkan horey u subscribe garaysan channelka subscribe garay waa kan hoostaan ku qoran aad iyo aad baad u mahadsan tahay peace soomaaliya ha noolaato khayrul kalaami ma qalla wadalla